wuxuu guursaday iyada oo ka weyn 10 sannadood. markii ugu horeysay waxay ka diiday in uu ballan ula baxo oo ay inta ballamaan ay soo sheekaystaan maadaama uu yahay wiil yar iyadoo sabab uga dhigtay inuu yahay wiil aad uga yar. kadibna waxa uu sheegay arrin la yaab leh oo ayadii naxdin ku noqotay. waa agtaradda ahna xidigada caanka ah ee Priyanka Chopra oo ahayd riyada malaayiin dada. maadaama ay ahayd haweeney aad u qurux badan waxay ku guuleysatay haweeneyda ugu quruxda badan Hindiya iyo caalamkaba. wuxuu ahaa heesaaga Nick Jonas mid ka mid ah kuwa la cajabsan quruxdeeda. maalin ka mid ah maalmaha ayuu u qoray warqad uu ku leeyahay saaxiibaday ayaa igula taliyay in aan adiga kula ballamo oo aanu soo sheekaysano. waxay ugu jawaab celisay iyadoo ku jeesjeesaysa dhimale la xiriir madaxa shaqaalaha shaqadayda isaga ayaa darsi doona inaanu kulmi karrayn kale. kumana aysan fakirin inay xiriir la samayso waayo waxay u maleynaysay in uu la kaftamayo oo kaliya. waxay soo martay Priyanka Chopra 3 xiriir oo ay ku soo fashilantay kuwaas oo burburiyay qalbigeedii wayna ka niyad jabtay inay xiriir dambe samayso waayo waa ay ka qalbi jabtay raggii oo idil. waxay muddo badan ka warwareegtaba in ay kulmaan. 2 sano kadib ayay waxay ku kulmeen xaflad Oscar lagu qabanayay oo mid ka mid ah ragga filmaanta jira lagu guddoonsiinay. xafladdaas ay isugu yimaadeen. Nickna waqti iskama lumine waxa uu isku dayay in uu soo bandhigo la yaabka iyo tacajubka uu hayo iyada iyo suu ula dhacsan yahay. isla ilbiriqsigaas Nick orod inta isku taabtay oo ruuga dhulka dhigtay ayuu yiri ilaahayow tani ma xaqiiqa xageebaad iga jirtay noloshaydii oo dhan. Priyanka dareen falcelineed kama aysan sameyn wuxuu Nick sameeyay darteed inta uu soo orday oo lugaha dhulka jilbaha dhulka u dhigtay oo ku qayliyay alla tani ma xaqiiqa ama tani ma dhaba wax dareen ah ama falcelin ah ma aysan ka sameyn. waxay ka aqbashay oo kaliya in xiriirkoodu noqdo xiriir saaxiibtinimo. waxay tiri ma doonayo xiriir jacayl. waxay tiri waxa uu ahaa nin gaaban oo aniga aad iga sii gaaban mana doonayn inaan xiriir la sameeyo nin noocaas ah. Nick isma dhiibin waxaana uu isku dayay inuu marar badan ku soo laabto ilaa ay ka aqbasho. wuxuu ka codsaday mid ka mid ah saaxiibadiis inuu u dhaxeeyo iyada iyo isaga si uu ballan xiriir uga soo qabto oo ay u ballamaan. rabitaankiisii faraha badnaa ee aan kala joogsiga lahayn darteed waxay ka aqbashay in ay ballan aadaan oo ay kulmaan. ballantaas ay ku kulmeen waxa ay ku ogaatay Priyanka inuu Nick yahay nin aad u qalbi wanaagsan oo wanaagsan intuu nin wanaagsan yahay. awal hadday diidaneyd fikradda ah inay xiriir la samayso hadda waxa uu bilaabay qalbigeedu inuu soo jeclaado wiilkan dhalinyarada ah. jacaylkoodii waxa uu sameeyay horukac dadkuna waxa ay wada ogaadeen in ay labadani aad isugu sii dheeraanayaan marba marka ka dambaysa. markii la gaaray maalintii dhalashadeeda waxa uu ka dalbaday in ay isguursadaan. waxa uu sugay Nick intay ka dhamaanaysay xafladii dhalashadu kadibna waxa uu ugu tagay beerta gadaasheeda. jilbaha ayuu dhulka dhigtay kadibna waxa uu soo taagay fargashi dheeman ah oo qiimihiisu gaaraya $200,000. ma iga dhigaysaa ninka ugu nasiibka badan caalamka oo ma aqbalaysaa guurkayga? kadis ayay ku noqotay Priyanka dalabkaasi waxayna aamusnayd muddo 1 daqiiqo ah. waxa uu ku yiri inta aadan diidin dalabkayga iyo ogolow in aan fargashiga galiyo fartaada. isla sanadkaas ayay si wada jir ah u soo saareen saxaafadan ula hadleen in ay rabaan inay isguursadaan iskuna doonan yihiin. dad badani ma rumaysan warkaas waayo Priyanka Chopra waxay ka weyn tahay Nick muddo 10 sannadood ah. dhag jalaq uma uusan siin Nick waxa ay dadku ka sheegayaan jacaylkiisa waayo aad buu u jecel yahay. waxa uu xitaa jeclaaday in uu ka dhigo xafladda arooskooda wadankeeda Hindiya inuu ka dhaco ehelkeeda dhexdeeda. xafladii arooskoodu waxa uu ahaa mid la yaab leh oo laga dhigay muddo ama soconaysay muddo 2 maalmood ah. maalintii koowaad waxa loo dhigay qaab Hindiyeed oo yacni diintooda Hindida iyo waxaas ay maaragtay ku dabaqeen. maalintii labaadna qaabka Kiristaanku diinta maaragtay u dhigtaan aroosyada iyo waxaas ay noqon. waxay tiri waxaan u maleynayay in aan dhaafay waqtigii guurka aan dib dambena u heli doonin qoys iyo caruur ilaa uu noloshayda ku soo baxay Nick. markii ay u dhamaatay bishii malabku labadooduba waxay aad ugu mashquulsanaayeen shaqooyinkooda. midna fanaan buu ahaa fankiisa ayuu ku mashquulsanaa midka kalena wuxuu aad ugu mashquulsanaa film jilisti iyo hawlahaas. dadku waxay filanayeen in ay durbadiiba kala boodi doonaan sida ku dhacda dadka caanka ah oo yacni dadka caanka ah way isguursadaan kadibna waa isfuraan kadib yacni dadka caanka waxa ku badan caadada ah inay isna guursadaan laakiin ay uusan guurkoodu sii waarin oo ay kala boodaan. waxaa la yaab leh in lamaanahani degsadeen qaacido u gogol xaaraysa in guurkoodu noqdo guur waara oo waraaqa
oo aan soo afjarmin sida dadka caanka ahi ay u badan yihiin. talow qaacidadaasi maxay tahay, maxay noqon kartaa? qaacidadaasi waxa ay ahayd inay labadii isbuucba mar kulmaan ugu yaraan. waxay go'aansadeen xitaa haddii ay laba wadan oo kala fog kala joogaan inay isku yimaadaan oo kulmaan. waqtiyada xunxun iyo kuwa wanaagsanba waxa aan ahaan doonaa midka aad ku tiirsanaatid, waxaa tahay midii nolosha ila qaybsanaysay. qisadani waxa inoo xaqiijinaysaa in jacaylku uu ka awood badan yahay kala duwanaanshaha wadamada iyo da'da iyo waxyaabahaas oo dhan. war kasta oo laga faafiyo iyo wax kasta oo laga faafiyo jacaylkooda ayaa ka weynaa oo ka awood badnaa. haniyad jabin, maalin ka mida maalmaha ayaad heli doontaa qofku jecel oo ku ixtiraama, wax walbana waxay ku noqon doonaan wax sahlan. waxaa idiin soo saaray idiinna soo jeedinayay anigoo ah Cabdullaahi Cabdikariin Khaliil. haddii aad ka heshay muuqaalkan, subscribe-ta inoo taabo, like-ta dhiirigelinta iyo share-tana inoogu dar. aad iyo aad baad u mahadsantihiin meel kastoo dunida ka joogtaan.